soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa mar kale u ciyaari doonaa qof kale qofkana uu ciyaaraya dabcan budget ahaan waxaa kaga bilaabay $150 waxaana ku wada balanay dabcan inay gaarsiiyo $1500 hadirtan waxaa haya balance ahaan $858 muuqaalkan gudihiisa marka waxaa rabaa inaan ku idgareeyo $1500 game walba ama trade walba oo qaadanayna dabcan waxaa ka bixi doonaa sharaxaad si qofka muuqaalka daawanayo uu u fahmo marka hadii aad daawashada ku guuleyso channelka waxaa shaashada kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan la wadaagto gameka guda galeena mar raba in waqti aan sii lumiyo marka gameka aad soo guda gasho oo dabcan gamekan crashka aad soo gasho laba qodob oo ugu muhiimsan qofka inuu ogaado qodobka koowaad wuxuu noqonayaa in dabcan aad ogaataa targetkaada ama yoolkaada inuu wax cad noqdo tusaale aan hadda $150 ka soo bilaabay $1500 waa targetkeyga $1500 waxaa laga yaabaa inaan si fudud ku gaaro laakiin markii aan gaaro kadib in manipulation uu igu dhaco oo dabcan dib u ciyaaro lacagtii dabcan waqtiga ama yoolka ama dabcan waqtiga uu soo qabsaday inaan gaaro taa oo noqonaysa dabcan balaan xumo soo marka mar walba balaankaada ha cadaado targetkaada hadii aad gaarto leave it halka uga bax qodobka labaad wuxuu noqonayaa in gameska qaarkood aad daawato si aad u hesho signal saxan oo aad isku hubto hadda dhowr game aad daawanayna halkan waxaa ka dhiganaynaa $400 halkan $158 $25.99 almost hadirtan waxaa haysanaa budgetkeeni ama targetkeeni qorsheeni aan kusoo galnay automatically waa wada haysanaa soo marka mar raba hadirtan inaan sii ciyaaro $1500 targetkeyga ahaa $150 ka soo bilaabay $2116 haystaa qaladkeyga waa dabcan inaan $1500 kadib aan sii ciyaaro laakiin waxaa rabaa dabcan inaan sharaxaad fiican halkan kaga bixiyo $1500 markii aan gaaray welibana si fudud aan ku gaaray automatically dareenkeyga wuxuu ii sheegay inaan sii ciyaaro taa oo keenaysa inaan sii ciyaaro oo lacag aan sii dhigto weliba anoo lacag badan dhiganayo weli xitaa inta badan markii targetkaada aad gaarto waxaa ku fikiraysaa gameska soo socda meelo dhadhow kaga dego lacag badan dhigo taasoo mararka qaar kugu noqon karto qaladka ugu weyn aad galayso soo marka mar walba waxaa idinkala talinaya inaad ka fogaataan aan hadirtan targetkeyga dabcan almost waa hidgareeyay sababaha aad dabcan trade-ka u qaadanaya waxaa kamid ahaa $150 hadirtan kaliya waxaa u baahnaa $300 iyo jajaba u baahnaa $360 camal u baahnaa laakiin almost $450 kaga dhigto oo gameka 3 inuu gaarayo ogaa maadaama game kore dabcan uu ku dhacay 1.41 waxay noqon kartaa 4 oo hal laga jaray oo 3 ah sidoo kale waxay noqon kartaa 4 oo hal lagu daray oo 5 ah sidoo kale 2.5 way noqon kartaa mar walba waxbay noqon kartaa marka xisaab ahaan mar walba aad ku xisaabtamaa la rabo inaad dabcan haddana aad ka fogaato mistakeska ama qaladaadka targetkeen waa hidgareeyay maadaama $1500 qofka ku balansaneen mar raba inaan sii ciyaaro $600 ee ka badan $1500 commission ahaan u qaadan doonaa soo marka wax mistake ama raba inaan sii qaato waxaan rajaynayaa muuqaalka wax badan ka fahanteen sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii aad daawashada ku guuleyso channelka waxaa shaashada kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan la wadaagto kuma santahay daawashada muuqaalkan